saddex nafti haligoo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab wasiirka amniga ayaa sidoo kale golaha wasiirada u soo gudbiyay talooyin la xiriira dardargelinta amniga caasimada iyo guud ahaan dalkeena wasiirka waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay in la dardargeliyo ama la dhaqan geliyo qorshaha isla xisaabtanka ee dawladda si dadka Soomaaliyeed ay nabad iyo nolol ugu noolaadaan waxay golaha wasiirada ay warbixinta wasiirka amniga kadib ay xilalkii ka qaadeen markii uu soo jeediyay wasiirka amniga taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Janaal Daahir Saciid iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolsho oo dhamaantood la magacaabay gudaha sanadkan inuu ku jirno wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo warbaahinta dawladda la hadlay shirka golaha wasiirada kadib ayaa faahfaahin ka bixiyay ajandooyinkii looga hadlay shirka maanta ee golaha wasiirada iyo sidoo kale go'aanadii ka soo baxay ugu horeyntii wasiirka amniga gudaha mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa golaha wasiirada si warbixin la xiriirta dhacdadii masiibada qaran ee 14 Oktoobar iyo tii shalay 28 Oktoobar ee kooxaha argagixisadu geysteen golaha wasiirada ayaa ugu horeyntii ka tacsiyay dhammaan dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ee hotel Nasablo 2 una rajay dadka dhaawacay in Ilaahay bogsiyo golaha ayaa si kulul u cambaareeyay falkaas isaga argagixisada oo mar walba ay beegsanayaan dad aan waxba galabsan wasiirka amniga ayaa warbixintii 14 Oktoobar maalintii masiibada qaran waxa uu sheegay in ilaa 5 qof ay hay'adaha amnigu u hayaan oo ka mid yahay darawalkii waday gaariga nooha sidoo kale 2 qof oo damiin ka ahaa gaarigii qarxay oo iyagana gacanta dawladda ku jira iyo shakhsi isagana isu soo dhiibay hay'adaha amniga oo isagana gacanta ku jira oo waxaana socda waraysiyo la yeelanayo wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyay dhacdadii shalay ee hotel Nasablo 2 oo uu sheegay in ilaa 27 qof ay ku geeriyoodeen dad badan oo dhaawacana ay jireen dad badan oo hotelka ku xanibnaana ay ciidamada u gurmadeen geesiyaasha ah soona badbaadiyeen wasiirka ayaa sheegay in 5 maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay falkaas fuliyeen 2 ka mid ahna midna gaarigii ku qarxay mid kalena afaafka hotelka ku qarxay halka saddexdii kale ee dagaalamaysay hotelka gudaha u galayna ugu dambeyntii gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada geesiyaasha haddana ay ku socdaan waraysiyo la yeelanayo doodeer ayay golaha wasiirada ka yeesheen arrimaha amniga iyo nabadeynta soona jeediyay talooyin muhiim ah oo lagu horumarinayo amniga dalka iyadoo cashar laga baranayo dhacdooyinka hore u dhacay golaha wasiiradu waxay istuseen in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah inuu jiro intaas kadib wasiirka amniga ayaa golaha wasiiradu wuxuu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay tala soo jeedintaas wasiirka ugu dambeyntiina cod aqlabiyad leh u qaaday in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed Cabdixakiin Daahir Saciid iyo agaasimaha nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolsho shirka maanta xilalka looga qaaday agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Cali Sambalolsho iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Janaal Cabdixakiin Daahir Saciid ayaan lagu magacaabin taliyaashii bedeli lahaa hayeeshee waxaa la sugayaa in siifiye ay soo gudbistaan ama taariikh nololeedyadooda dadka muwaadiniin Soomaaliyeed ee doonaya si amniga caasimada loo dardargeliyo xilka qaadistan taliyaashana waxay qayb ka yihiin qorshaha isla xisaabtanka ay hore ugu dhawaaqday xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Nasr Basheer Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho